السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo teknolojiyadda. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqon dhiirigeliyaheena koowaad. Waad ku mahadsan tahay booqashadaada. dhammaanteen waxaan leenahay siro inoo qarsoon oo aan jeclayn inaan la wadaagno dadka kale ama asxaabta noo dhow. haddaba muuqaalkeena maanta waxaan ku baran doonaa qaabka foldaradaada aad ugu xiran karto password ama lock adigoo aan isticmaalin wax software ah. balse daawade haddii ay tahay markii ugu horreysay oo soo boqod channelkeen Hanweyn Media, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe inoo saarto, sidoo kalena aad furto gambeelka si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee mar waliba hela muuqaaladeena cusub. sidoo kale ha ilmaamin inaad like, share iyo comment aad inoo siiso muuqaalkan. mahadsanid, weligaana guuleyso. soo dhawo mar kale daawade. dabcan muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa qaabka folderka computerka ugu jira aad ku xirato lock ama password si dadka kale asxaabtaada ama ehelkaaga aysan u arag wax adiga ku gaarka ah. marka hore insha Allah waxaan isticmaali doonaa code-ka isagoo qoran ayaan iminka halkan ku haystaa, balse adiga waxaan kugu reebi doonaa insha Allah qaybta faallada muuqaalkan YouTube hoostiisa ama qaybta loo yaqaan description-ka. dabcan waa kana code-ka halkan laga bilaabo ateeko ilaa qaybta ugu hooseysa ayuu ka kooban yahay oo end ah. dabcan insha Allah marka halkan ku soo dhigana soo koobiyeyso, halkaana kadib ku save gareyso. dabcan marka hore waxaan u baahanahay inaan doorto folderka aan rabo inaan xiro isla markaan log ama password aan u sameeyo. tusaale folder cusub ayaan abuurayaa iminka. halkan new def folder abuur. okay, magac isaga bixi tijaab iska dheh. okay, kadib waxaad aadaysaa qaybtan wuxuu ku jiro code-ka, qaybta password-ka ah. halkaas aniga iminka waxaa igu samaysan tusaale 225 oo kale ayuu password-kaygu yahay. halkaas haddii dabcan ku qoran tahay marar qaar waxaa suuragal ah in ay ku qoran yahay your password. marka halkaas ayaad gelinaysaa tiro ama number. tusaale passwordka aniga waxaa rabaa inaan ka dhigo 1 2 3 oo kale, kadib save dheh control s. kadib waxaad dhahdaa qaybtan qoran tahay fileka halkaa kale jogsi, waxaadna ka xorataa save as. kadib waxaad raadaysaa folderka aad rabto inaad xirto halka uu yaalo. tusaale kayga desktopka ayuu yaala, waxaan rabaa halkan tijaabo waa kana. isaga markaa ku dhufato 2 jeer click halkan file magac u bixi. tusaale waxaan ku qorayaa tijaabo, kadibna waxaad leedahay extension ka .pat. kadib waxaad imaanaysaa qaybtan save as type-ka qaybta hoose, halkan jogsi, kadib waxaad ka doorataa all files, kadibna waxaad dhahdaa save. kadib marka iminka faylka dib u fur. dabcan iminka tijaabo waa kan ku dhufa 2 jeer click kadib waa aragtaa iminka inuu ku furmay qaybtan lockerkan. dabcan waa file xiran, waxaad gashan kartaa dhammaan dokumentiyada aad rabto in lagu qariyo kale. tusaale waxaan rabaa inaan kan soo qaado, kadibna aan dhexgeliyo faylka si aan u qarsado. faylkii ayaan iminka furay, qaybta lockerka ayaan dhigay. kadib mar labaad ku dhufo tijaabo, kadib iminka qaybtan dooska ayaa lagu keenay. waxaa lagu dhahay ma hubtaa inaad xirayso folderkan. kaliya xarafka way taabo, kadibna enter dheh. waad aragtaa iminka dabcan folderkii iminka waa ku qarsan yahay. dabcan qof kasta halkan soo gala marka uu sidan u furnay qaybtan tijaabo .pat kaliya ayuu arki doonaa, balse wax folder ama wax document halkan yaallo ma arki doono. sidaa darteed waxaan leenahay si aan u furnay isla markaan u aragno folderkeennii hore ee aan xirnay, isla kan ku dhufo 2 jeer kadib waxa uu lahay
lambar sireedka geli si aad folderkan u furto lambar sireedka aan samaysanay oo ah 1 2 3 aan gelina kadibna waxaan leenahay enter dabcan waa kana waan lagu soo bandhigay faylkii ku xirnaa locker ahaa waxa ku jira gudihiisana waa dabcan wordkii aan soo koobiyay dabcan sidaas ayaa markasta lagu xirtaa faylashaada ama documentiga u baahan tahay inaad ka dhigto mid ku sir ah isla markaana qofna aanu kula wadaagi karin dabcan habkana koodkan la isticmaalo waxay u gaar tahay windowyada sida 8ka 10ka iyo noocyada kale ka dambeeyay marka waxaan rajaynayaa insha Allah inaad fahantay qaabka u fudud ee folderada loo xirto isla markaana loogu sameeyo ama passwordka adiga oo qarsanaya waxyaabo ku gaarka ah qofna aan kula wadaagin طبعا haddii aad faa'iiday waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalkan like share comment aad noo siiso channelkan aad subscribe noo saarto oo halkan jazakallahu ku dhaafay sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh